Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Dhammaan walaalahayga Soomaaliyeed ee muslimiinta ah aan ku walaalnoolnay diinteena Islaamka, waxaan idin leeyahay Alle subxaanahu wa tacaala ha idin ammaansado meel walba aad joogtaan. Waxaan halkii kasii ambaqaadaynaa buuggeeni loogu magac daray 4000 Essential English Words. Buugga aan ku guda jirnaa waa buuggii koowaad uu qoray ninka la leeyahay Paul Nation oo ah professor cilmiga linguistics ka soo baxay. Waxaan ku guda jirnaa cutubkii afraad ayaan maanta ka bilaabeynaa. cutubka afraad ilaahay hadduu idmaa waxaan kasii bilaabi doonaa pageka 26aad. word listiga nala siiyey maanta waxay ka bilaaban doontaa appropriate. Appropriate waa ubogis. When a thing markuu shay is appropriate loo bogaa, it's right, waa wax habboon or normal iska dhexdhexaad ah. It is appropriate waa wax loo bogaa to wear inaad xiritaa suit isku joog when you go markaad aadaysid to the office xafiiska. Avoid waa ka fogaasho. Avoid ka fogaashadu is waxaa leeyahay something. To avoid waa inaad ka fogaataa something shay, is to stay away from it waa inaad shaygaas ka fogaataa. Tusaalaha waxaa leeyahay avoid ka fogaaw the broken bottle dhalada jajabtay on the floor ee sagxadda ku jajabtay. Behave waa si edeb ah u dhaqmis waaye. To behave inaad u dhaqantaa si edeb leh markaas. Is to act waa wax qabad in a particular way hab markaasi toosanna ku socota. Especially qaasan to be good mid wanaagsan ah. She always mar waliba iyadu behaves waxay u dhaqantaa well si wanaagsan when her father markuu aabeed is around uu ag jooga. Calm waa xasilooni ama deganaasho. When someone markii qof is calm uu degan yahay mise uu xasiloon yahay, they do not get excited or upset. Ma cariisna oo ma xanaaqsana. A nice warm bath qubays wanaagsan oo diiran makes me waxay iga dhigtaa feel inaan dareemo so calm deganaasho. ereyga ku xiga wuxuu yahay concern waa walaac. Concern walaacu is a feeling waa inaad dareento of worry welwel. anigu was filled with waxaa iga buuxay concern walaac after reading markaan akhriyay kadib the newspaper journalka. Content waa u bogis. To be content inaad u bogtaa is to be happy waa inaad ku faraxsanataa and not want more wax badanna aadan rabin. The baby canuga looked very content. Canugu wuxuu u ekaa qof markaasi u bogay sitting inuu iska fadhiyo on the floor sagxadda. wax marka aad sameynaysid waxaasna aad u bogaysid inaad sameysaa content ayaa ugu magac darnay. Expect waa rajayn. If you expect something to happen, if you haddii adigu expect aad rajaynaysaa something shay to happen inuu dhacaa, you believe waxaad aaminsan tahay oo aad rumaysan tahay it will happen inay dhici doonaan shaygaasi. I expect waxaan rajaynayaa the baska to be here inuu halkaan imaan doono very soon. dhaqsi inuu halkaan imaan doono. ereyga ku xiga wuxuu yahay frequency. When something markii shay happiness uu u dhacaa frequency waa isdaba joog. It happens shaygaas wuxuu u dhacaa often badanaa waa u dhacaa shaygaas. We meet waxaan la kulannay. We meet waanu la kulannaa aan dhahe frequently si isdaba joog ayaan ula kulannaa. Either midkood at beginning bilowga or ending mise dhamaadka of the week isbuuci. Habit waa dhaqan ama caado. A habit caadadaysu is a thing waa wax that you do often aad badanaa markaas sameysaa. waxaa leeyahay marka tusaalaha smoking cabidu sigaarka is a bad habit waa dabeecad markaasi xun that
taasoo markaasi can kill you ee ku dili karta. Markaani behave iyo habit laba mid ayay kala noqon karaan. Behave ereygaasi si adab u dhaqmis waa verb, waa ficil wax adiga sameynayso. Habit waa noun, waa magac lagugu magac daray. Instruct waxa waaye waa baris. To instruct inaad barata is to teach, waa inaad bartaa. My teacher macalinkeyga instructs us wuxuuna baraa in several subjects, maadooyin badan. Issue waa mowduuc muhiim ah. An issue mowduuca is an important topic, waa mowduuc muhiim ah. The men nimanku spoke about waxay ka hadleen issues mowduuc muhiim ay ka hadleen that mowduucaasoo were important muhiim u ah to the people dadka. None cidna mise marka shayna. None means none waxaa lala jeeda hadaba not any of something, qofna ma aha, or something mise shayna ma aha. Ereyga kale waxa uu yahay waa shake, waa ruxis. To shake inaad ruxdaa is to move, waa inaad dhaqaajisaa back gadaal u dhaqaajisaa, or forth mise hore u dhaqaajisaa, ama waxaa lala jeedaaba up, kor and down quickly. Inaad shay aad u dhaqaajisaa kor iyo hoos ayaa waxaa la yiraahdaa shake, waa ruxis. When people markii day shake hands gacmahooda iska ruuxaan, gacmahooda isgeliyaan oo is ruuxaan, it usually badanaaba ruuxidaankaasi means wuxuu la macniyaa they agree, in isku raaceen, in isku waafaqeen ay la macno tahay. Spread waa fidin. Spread waa fidin. To spread inaad fidisaa is to move, waa inaad dhaqaajisaa quick, si dhaqso aad u dhaqaajistaa to more places, goobo badan aad u dhaqaajisaa. Spread ali yiraahdaa waa markaasi fidin ama kala bixin. I like aniga waan jeclahay to spread inaan ku fidiyaa butter subag on my toast. Rootiga kulul ayaa toast la yiraahdaa. Wuxuu yiri waxaan jeclahay inaan ku fidiyaa markaasi subag inaan ku fidiyaa ayaan jeclahay rootiga kulul. Stroll waa luga baxsi. To stroll inaad luga baxsataa means waxaa lala jeedaa to walk slowly, inaad u socotaa si markaasi slowly ah oo degan, and calmly misna xasiloon. Tusaalaha wuxuu soo qaatay my dog, eygeyga ayuu yiri. Annaga haddaanu nahay muslimiin, eyga Allah subxaanahu wa tacaala waa uu naga reebay. Ma dhihayna marka my dog, eygeyga ma dhihi karno oo meeshaas friend ayaan gashanaynaa. My friend saaxiibkeyga and I aniguba strolled waan soo lagu baxsanay through anagoo marayna the back darjiinka tray maanta. Village waa xaafad. Village waa xaafad. A village xaafadu is a very small town, waa magaalo yari, very aad u yar weliba. There are waxaa jira only a few houses, guryo dhowr ah ayaa jiro in my village xaafadiina. Xaafadeynu wuxuu yiri guryo dhowr ah ayay leedahay. Tusaale beledweyne oo ah magaalo madaxda gobolka Hiiraan waxa ay leedahay 4 xaafad ayay leedahay. 4 xaafad ay u sii qaybsamaan iyaguna. xaafad ay u sii qaybsantaa. Village ayaan ugu magac darnay marka. Haddii aan ka soo gudubnaa page-ka 27aad waxaan usoo gudbaynaa page-ka 28aad. Page-ka 28aad waxaa noogu xusan exercise su'aalo. Su'aalaha noogu xusani
waxaa waajib ah caadiyan ardayga cashir markii lasoo siiyaa inuu fahmay in kale waxaa la siiyaa cashirkii wax la mid ah taasoo looga baahan yahay ardaygii inuu aqoonsado. hadduu aqoonsi waayo waxaa markaasi halkaasi ka cad ardayga inuusan fahmin. si markaasi cashirkii aan soo aqrinin inaad fahantay iyo inaadan fahmin loo ogaado waxaa nala siiyey meeshaani su-aalaha waxay ku qoran yihiin beejka 8 ilaa iyo beejka 9. labadaasba adiga ayaan kuu deynayaa ee soo xali allah doo idmaa. waxaan u gudbaynaa beejka 30. beejka 30 waxaa noogu xardhan cashir ayaa noogu xardhan. cashirkaas oo sheeko ah. sheekadaasi waxay ka turjumaysaa ereyadii aan soo qaadanay ayaa waxaa lagu soo sameeyey markaas waxaana loo soo dhexgeliyey sheeko. beri ka maalin haddii aan la kulanna ereyadaas meel walba ay ku jiraan inaan aqoonsan karnaa. sheekada waxaa ciwaan looga dhigay the dog's bell, jeliskii eyga. eyga jeliskiisa waan dhihi karnaa markaan, maadaama aan jeliska u wato oo keliya aan ka hadlowna aanan dhehaynin eygeygii. eyga jeliskiisa waan ka hadli karnaa. John's dog, eyga John wuxuu ahaa a bad dog, ey xun ayuu ahaa. He bit waa uu qaniinaa people dadka frequently, si isdabajoog ayuu u qaniinaa. Johnkan ninka la yiraahdo had a great concern, walaac xoogan ayaa markaasi soo wajahday about this ee ku saabsan arrinkan eygiisa inuu markaasi dadka u qaniinaa. walaac weyn ayay ku keentay. 8 dhaqankaasi qaniintida ah was not ma ah appropriate way hab loo bogo for a dog eyga to behave inuu u dhaqmaa. His friend saaxiibadiisa ninkan John saaxiibadiisa in the village ee xaafada kula suganaa always mar walba expected waxay rajeynayaan the dog eyga ay rajeynayaan to bite inuu qaniina dam iyaga. eyga waa uu ku qaniini waaya ayay lahaayeen markaas. The news akhbaarta about John's dog ee ku saabsan markaasi eyga John spread waxay ku faaftay through the village, xaafada ayay ku faaftay. None of the people qofna dadkii wanted more rabin to go inuu aado to the John's house, guriga John. John ninka la yiraahdo tried wuxuu isku dayay to instruct inuu markaasi baro the dog eyga to behave sida loo dhaqmaa. But laakiin eyga markaasi baritaankii never worked, maysan u shaqeynin. He tried wuxuu isku dayay to be patient inuu u dulqaataa ayuu haddana isku dayay and teach the dog eyga to be calm inuu isdejiyaa. That arrinkaasi also xitaa did not work, maysan shaqeynin. Johnny Clear did not wanted more rabin to punish inuu ciqaabo the dog eyga. How sidee ayaa markaasi will I stop ku joojiyaa my dog's bad habit ayuu yiri. sidee ayaan ku joojiyaa dhaqankaani xun ee eyga. John ayaa asked wuxuu weydiiyey himself lafsadiisa. John's friend John saaxiibkiisa ayaa wuxuu yimid to talk to him inuu isaga la hadlo ayuu yimid about the issues, mawduuc kala hadlo. mawduuca maxaa waaye waa qaniinyada eyga oo dadka ku haay. During their important meeting, intay ku guda jireen kulankoodii muhiimka ahaa, his friend saaxiibkiisii said ayuu wuxuu ku yiri the people dadka in the village xaafada asked me waxay u warsadeen to represent inaan matalo them iyagu inaan matalaa booskoodii ayay weydiisteen. We went waxaanu ka rabnaa your dog eygaagu aan ka rabnaa to stop inuu joojiya this habit dhaqankaani. Why sababtee don't you put a bell, maxaadan u gelin waysay gambaleel ama jealous around the dog's neck. qorta eygaagu maxaadan u gelin waysay markaasi gambaleel. This way arrinkaasina we could hear waxaan maqli karaynaa your dog's eygaaga coming down ee soo socda street
wadada. Intuu wadada soo socdaa anagu waxaan maqli karaynaa jalaska eygaaga qoorta u suran. John ayaa thought wuxuu maleeyay this arrinkan was inuu yahay great idea, fikrad wanaagsan. Now hadda people dadka could stay away, way ka fogaanayaan from the dog, eyga ay ka fogaanayaan. It would be not able, mana awoodi doono eygaas to bite inuu qaniina anyone animal, qof inuu ciriiro oo qaniina in badani ma awoodi doono. The dog eyga looked wuxuu liked wuu jeclaaday the bell, gambaleelka ayuu jeclaaday eygii. To sidoo kale people dadka looked at him way iska fiirin jireen when they heard markay maqlaan his bell, gambaleelkiisa. This arinkani made waxay ka dhigtay the dog eygii very content, mid u bogaba. He liked wuxuu jeclaa the sound dhawaqa the bell gambaleelka beleeyad uu sameynayo when he walked marka uu socda. One day maalin John's dog eygii markaasi John ayaa strolled lagu baxsi aaday through so maraa the village xaafada and mit wuxuuna la kulmay some other dogs eeyo kale. He expected them wuxuu ka rajeynayay to want a bell inay u baahan yihiin jealous like this like his midkiisoo kala, but like they love it way ku qosleen at his bell, gambaleelkiisa ay ku qosleen. They said waxayna yiraahdeen the bell jalaskani made wuxuu ka dhigay people dadka avoid mid ka fogaada him isiga. Waxaa leeyahay markaasi John's dog eygii John shook ayaa ruuxay his head madaxiisa. No maya. They looked waxay markaasi fiiriyeen me aniga. They iyagu look at me way fiiriyeen because maxay they like waxay jeclaadeen the bell, jalaska ayay jeclaadeen. The other dogs eeyihii kale said waxay yiraahdeen you have the wrong idea, fikrad qaldan ayaa haystaa. What makes waxa ka dhigay you popular, aan waxa ka dhigay fikrad qaldan ayaad ka haystaa ayaa liir eeyihii kale ku yiraahdeen. Of course dabcan they like waxay jecel yihiin your bell, gambaleelkaada way jecel yihiin. It tells them wuxuu u sheegaa iyagu where you are, halka aad joogto, so sidaa darteed they can avoid you, way ka fogaanayaan. You are not able, ma awoodid to bite inaad qaniinta them iyaga animal in badan. You see waad u jeedaa being popular, caan inaad noqotaa is not something, ma aha shay positive xaqiiq amse hubaal ah. When markii it's for the wrong season uu jiraa markaasi arin qaldani. halkaasi maanta waxaan kusoo gabagabeyneynaa cashirkeenii aan ugu talagalnay ee maalinlaha ahaa. waxaan markaasi qalday nafteedii shaydaanay ka ahaayeen, waxaan saxayn alla subxaana watacaala ay garadsiiyeen. beejka u dambeeya 31 waa su-aalo idinka ayaan idin deynayaa. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.